saldhigga koobaad ee wadanka magaalo madaxda ku taala dadka meesha maxaan ku yiraahdaa Soomaaliyeed oo deganna waa Soomaali oo dhan ee qabiil gooniya ma degana hayeeshee golahan Soomaaliyeed war saxaafadeedkan halkan ka akhri doono ayay soo diyaariyeen sidaas ayaana wicitaan ku ahaa golaha guurtida beelaha Soomaaliyeed ayagoo aan dan gaar ah kala hayn waxay fiiro gaar ah siiyeen dadka ku dhibaataysan gobolada Koonfureed iyo kuwa bartamaha Soomaaliya iyo caasimadda waxayna u soo baxay arrimaha hoos ku qoran ganacsatada dalka joogta kama qayb qaataan taakulaynta walaalahooda waa inay wax u qabtaan aad baan u jecelnahay meel kastaba Soomaaliya ay joogto anaga waqooyi waxa way Soomaali waay laakiin waxa way sidaas waqooyi wax uu qabato inay koonfur wax uu qabato oo maanta dhibaatada maanta koonfur haysa waana loo jeedaa caalamkuna ogsan yahay dahabshiil inay wax ka qabato taasaan macnaha soo jeedinaynaa wixii kale kulli salaadiin iga dambeysay ayaa jira wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ha is ceeb tirto maadaama dadka ay wada arkeen inaa koonfurtaan waxba loo qaban waxaan rabnaa inay koonfur iyo waqooyi inay u ahaadaan inay sinaan iyo cadaalad yaanu ka rabnaa dahabshiil waxaan ku dhaliileen waa intaas maxaa jira dahabshiil anaga waa ognahay meeshay ka soo jeedo hase ahaatee waxaa la rabay inay koonfur waxba ka tirsan oo ay sinto dadka marka waxaan ka codsahaynaa anaga diinahay odayaasha inay u sinnaadaan Soomaali meel kasta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم شركة نعمية شركة ونوف وحنا بسود وين السودان نور عبد القادر سلطان سلوى فجعلوا نفسه وسهرة وكان ربك قديرا إن شركة صحافة مانتا طبعا أيام كلها جوتي الصومالية يعني وجهه سنجهي وجهه سأيتهاي تاكلين تدك بركة عياشة إيوه سهولك مركا سكة جرائدنا وأنا الله أخرين دونا هدولا يدمو مركا أرياشا كسور وين هدولا يدمو إن شاء الله إنه كثير هذا أنت سكلا يشوفه. الأمير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شركة ما أنت وح الله قبتي أرياشا الصوماليات دون الصوماليات والله إنه يهبط كمان مقنع. waxaa loo qabtay oo waxa ka mid ah sida ninka suldaanka uu sheegay dhibaatada taala oo yaani abaaraha waxba loo qabanin ama shirkad ha noqoto ama ha noqoto hay'adaha ha noqdaan yaa muxuu ahaa inaan ka caawino bismillah xoogaa may faday af maayma inay ka hadal maayma kana habiidana fadaan insha Allah afka Soomaali ma yahay maay mahatin maaya ka hadalaan maayteen dhigisada iyaa yarkii atiin habateen xanuun maay ku fadaasan si aragni laakiin maay wal jar walahi qabsado taas si sheegan tan kala maad shirka may loo waday dhibaatada yaala barakacda iyo yaani dadka barakacay dhibaatada isaboolka wallan qabanay ama shirkooda ha noqotaan ama hay'adaha ha noqdaan nimanka hay'adaha tiyo Nairobi iska fadhiyaan مايلينا أنا وأكون قلني ساسين ويلني كور قل مرة ورد والقبش اللي فده والله ذهب شيل أنا قلت هذا مثلا شركوين إكمليين ما يهجير يعني ذهب شيل والصومالي حبيات أما كونفر قبتي مجران هدي من أضيالك الصوماليات أنا دليلان أنا دفع أضي أنا يكمليين إني والقوة صوالة الصوماليات أما كونفر
ولا أنت إيه كقاضوها هاي أو ما شركة اللي أنت أو دقالة لك هلا كوفر أمبار كوفر ولا قاتل وقوي كوبد وقوي كوفر اسمد كوفر شديد قبض وقوي شديد قبض كوفر قوي دلكاوا دكار هو قوي marka ma hajeediyaan qabiilnimada iyo walaal ko jiraan isku bi Soomaalnimo iyo yani in shaqay may codsadaan oo hajeediyaan in arrinta ay bedel dadka saboolka inta dhooban dadka oo masaakiinta dadka oo mahaysatada inta dhooban wal qabataan si degdeg wal qabataan anka eedoyto dadkii oo wal koo sheegay oo walaal koo sheegay oo yani ka eedoy oo wal koo sheegay waa ka aan eedoyto hijibaado wal ma gooyayso dadka walaalka ma ka codsadaan in yani wal qabato wal man qabado hayto wali inka qaado koonfurka qaado waqooyi jiroayta weelna billahi tawfiiq wasalaam alaykum warahmatullahi inta aad ka bixin waxyaabaha aad ku eedeynayso shirkadda dahabshiil maxaa ugu waaweyn waxa uu waaweyn dhaqaalihii iyo oo marka dadka shaqada inta ka soo wado inta la qaad hadii hagal jeeyo dadka wala qabano dhilkaas ilaa ka jeediyana barnaamijka habadilay wabillahi tawfiiq